kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono ciyaaraha. hadda janaalka ARK Sports ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda. muuqaalkan shargaliya si u soo biiraan saaxiibada ciyaaraha xiiseesa. waad mahadsantihiin. waxaan leeyahay saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan barako wanaagsan. waxaan ku bilaabi doonaa muuqaalkeena Belgium iyo Italia ayaa isla ciyaari doono kaalinta saddexaad tartanka UEFA Nations League. ciyaarta waxaa la daawan doonaa saacadu markay tahay 10 saac galabnimo xilliga geeska Afrika. caawa waxaa la ciyaari doonaa finaalka UEFA Nations League waxaana wada ciyaari doonaan xulalka Faransa iyo Spain waxayna ku wada ciyaari doonaan garoonka San Siro Stadium. ciyaarta caawa waxaa la daawan doonaa 3 saac 45 daqiiqo habeenimo xilliga geeska Afrika. waxaan fiiri doonaa shaacaha macquulka laga yaabo labada xulood caawa inay ku soo wada galaan. waxaan ku horumari doonaa xulka Faransiiska. dhanka goosha waxaa ku soo bilaaban doono Golailo Gohoris, saddex daafac Kondi, Rafael Varane, Lucas Hernandez, Bafat, Pogba, Rabiot, Griezmann, Theo Hernandez, Mbembe iyo Benzema. dhanka kale waxaan fiiri doonaa safka macquulka laga yaabo xulka Spain inuu kala hortago xulka Faransa. dhanka goosha waxaa ku soo bilaaban doono Golailo Simon, Afrid Dafa, Ascolabeta, Laporte, Paul Torres, Marcos Alonso, Koke, Busquets, Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. waa labada shax macquulka laga yaabo labada xulood caawa inay ku soo galaan. xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka Qatar 2022 waxaana wada ciyaareen Scotland iyo Israel. 3-2 waxaa ku badiyay xulka Scotland. goolka guusha xulka Scotland waxaa u dhaliyay laacibka Manchester United Scott McTominay. England Andorra ayaa isla ciyaaray kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka 5-0 waxaa ku badiyay xulka England. goolasha waxaa dhaliyeen Jadwal, Saka, Abraham, Ward-Prowse, Grealish. ciyaartii xalay ee wada ciyaareen xulka iyo Andorra waxaa qaybciraad cajiib soo bandhigay John Sancho kaasoo laba caawin ka sameeyay ciyaartii xalay ee wada ciyaareen xulalka England iyo Andorra. Denmark Moldova ayaa isla ciyaaray 4-0 waxaa ku badiyay xulka Denmark. Poland San Marino ayaa isla ciyaaray 5-0 waxaa ku badiyay xulka Poland. Sweden Kosovo ayaa isla ciyaaray 3-0 waxaa ku badiyay xulka Sweden. Finland Ukraine ayaa isla ciyaaray 2-0 waxaa ku badiyay xulka Ukraine. waana kulamadii xal laga ciyaaray isreebka koobka adduunka Qatar 2022. saaxiibada qiimaha badan hadda janaalka ARK Sports ku cusub tahay subscribe saaro si ku soo gaaraan muuqaalada soo socda. muuqaalkan labada saaxiibadaada waxaan aadi doonaa qodobada kale aan u soo talagalnay saaxiibada inaan la wadaagno. dalalka xidigaha ugu badan ku leh awaalmarinta Ballon d'Or sanadka 2021 ayaan fiiri doonaa. xulka qaranka Italia ayaa ku guuleystay tartanka Euro 2020 ayaa dalka ugu badan xidigaha ku leh. xulka qaranka Italia ayaa ku guuleystay tartanka Euro 2020 ayaa dalka ama xulka xidigaha ugu badan ku leh xidigaha u tartamaya awaalmarinta Ballon d'Or sanadka 2021. xulka Italia ayaa ku leh 5 xidig halka xulka England uu xulkii galay laga qaaday koobka Euro 2020 ku leeyahay 4 xidig kuwaasoo qaabciyaarad fiican soo bandhigay. dhanka kale xulalka Portugal, Spain, Faransa ayaa dhankooda xidigaha u tartamaya awaalmarinta ku leh min 3 xidig. haddaba dalalka xidigaha u badan ku leh awaalmarinta Ballon d'Or sanadka 2021 ayaa sida tan ah. Italia 5 xidig ayuu ku leeyahay. England 4 xidig ayuu ku leeyahay. Portugal 3 xidig ayuu ku leeyahay. Faransa 3 xidig ayuu ku leeyahay. Spain 3 xidig ayuu ku leeyahay. Belgium iyo Argentina min 2 xidig ayuu ku wada leeyihiin. Denmark, Croatia, Algeria, Egypt, Brazil, Uruguay, Poland, Norway min 1 xidig ayuu ku wada leeyihiin. weeraryahanka Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu rajeynayo inuu ku dhaadhiciyo saaxiibkiisii hore Juventus Federico Chiesa inuu ku soo biiro garoonka Old Trafford. 23 jirkan ayaa qaaday indhaha adduunka intii lagu guda jiray tartanka Euro 2020 oo ku guuleystay xulka qaranka Italia wuxuuna haatan dhaliyay 2 gool uu caawi ka noqday 7 kale. Chiesa ayaa xidiga Fiorentina asagoo Juventus kula joogo ama xilli Juventus ay doonayso inay haysato
xidiga laakiin xidiga ayaa haatan la xiriirinaya kooxa kale. Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu maamulka Manchester United u sheegayo inay keenaan xidiga Old Trafford si uu u garab ciyaaro mar kale. Ronaldo ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka xidiga wuxuuna aaminsan yahay inuu kooxda Manchester ka caawin doono kubadda si dhaqso ah u keento weerarka. saaxiibayaal waxaad fikirkiina ka soo dhiibi kartaan finaalka UEFA Nations League caawa ee wada ciyaari doona xulka Spain vs Faransa. xulkee ayaa u rajeynaysaa inay ku guuleysto koobka? fikirkaada waa inuu muhiim. waad ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.